هلو وقميو حلديد أو صولا بتي شكيرو كوبن باينيها يا anyways ما تصو دعوتين فيديوياشيدي aan soo dhigay meesha ku saabsanaa idoor tarjaa idoornimo macmushturnimo 2024 ilan dad badan baa raba inay idoornimada gaadhaan waan orda soo daawada jimcaha waxaynu u akhrineynaa kaararka naagtii Soomaaliya naaga badan ku jiraan iyadaa wuxuu saadaalinaynaa wiilka soo socda axadana waa dee al-axad maalintii ugu horreysay wiiga maalintaana naagtii barwaaqo iyadaa iskale maalintaas ayaynu u akhrineynaa okay so anyways wiigan oo dhan waan soo dhigay wixii wiigan ku saabsanaa next week baan kaararka dib u bilaabaynaa but sheekadan kooban waxay ku saabsan tahay maalintii dhaweytoole waxaa ka socday Maraykanka ninkii Trump ama trumpet waa baasha la afuufay maxaa la yidhi maalinta yowmal qiyaamaha waxaa la afuufayaa siidhi soo maaha langabliimaha ma soo xasuusta markuu lahaa siidhiga afuufa iyo muxuu yidhi ninkii seexdaa siciisu dib u dhalaya wariyaahe kaagiiba dib u dhalaya ka Somaliland dib umu dhalin naagtii barwaaqakeeda dib umu dhalin dib umay dhalin anyways so sheekadaas maalinta yowmal qiyaamaha siidhi baa la afuufaya idinkuna ma ogidin waa la afuufay already so ninkii waa kii dee dhegta laga toogtay waa ka dhegta isagoo ishayo kolba meel sidii nacam hero oo kale dee sidii nacam Caesar oo kale meel kasta loogu soo dhaweeyo alla maa lagu toogtay dhegtaa laga toogtay dhegtaas waxaan kusoo xasuustay initially sheekadii ugu horreysay igu soo dhacday like dhegtaa laga toogtay because bilo ka hor ayaan waxaan dhegeysanayay maxaan ku idhahaaye waxaan dhegeysanayay sheekadii ku saabsanayd sicii reer bina Israa'iil ay dahabka ka sameeyeen so waa tii muuse intuu baxay safar aad markuu soo laabtayna wuxuu arkay walaalkii nuux sheekadan is close to home isn't it waa kii nuux ugaga tegay dee bina Israa'iil ama reer Israa'iil markuu soo laabtay waa ka arkay iyagooba sac dahab ka samaysan caabudaya war maxaa idinku dhacay markaasay dhaheen dee waynu kaa daalnay oo suuqaanu galnay basically marka saca dahabka waxaa laga sameeyey ma garanaysaa waxaa laga sameeyey dhegihii ay reer bani Israa'iil dhegayaashoodii bay wada fureen oo markaas dhegayaashii baa la shiilay oo sacaas laga sameeyey taas meelay naga dhigay tukalaa jirta oo sheeko ku saabsan Soomaalida iminka aagan dee uu dagaalka ka socdo waqooyi maxay ahayd magaceedii naagtii dhegdheer ilaa halkaasay fadhiday bayskeedu meelahaas ay ahayd naagtaasi waxaa la oran jiray dhegdheer dhimatee dhulkii waa nabad really waa dhegdheer may dhimanin weli way nooshahay dherkii way dheer tahay ma fahamteen anyways naagtaas waxaa lagu eedeynayay inay dad qalata ahayd ama xuxuxda cabsi ahayd war cabsi ma ahayne waxay ahayd wax kasta ma aragtay dhegtaasay ku maqlaysay wax kasta way la socotay basaasada ugu weyn bay ahayd KGB haddaad tiraahid CIA haddaad tiraahid MI6 MI16 haddaad tiraahid wallahi they have nothing on her waxba naagtaas kama tarayaan wax kasta iyadaa ugu dheeray sheekadu iyadoon qofkiiba imanin bay soo gaadhaysay waa xageed ka timid xaggaas ka timid masanayo waxaanaad weday marka taas baa iga soo dhacday marka xitaa dhegta laga toogtay iyo sicii reer bina Israa'iil marka warsiidhigii waa la afuufay waqtiga intii ugu dambeeyay baa lagu jiraa haddaad muslimkaad isku sheegaysiid tihiin orda oo waxaad akridaan the treaty of Hudaybiyah ceelkii meesha lagu saxeexay ilaa Beershiba ama Shiba lagu sheegayo ama dee magacan Elizabeth wuxuu ku saabsan yahay Beershiba waa ceelkii heshiiska lagu saxeexay heshiiskaa dib ugu laabta haddaad wax rabtid inaad fahantiin weyda haddii kale dee saasun iska daba wareegta my